Assalaamu calaykum. Waa jawaabihii su'aalihii aan soo gudbinay shalayto. Aan u ballansanayn inaan jawaabahooda saxda ah iyo dadkii ka jawaabay bay soo gudbino maanta. Ee ka midka ah barnaamijkeenii Tijaabi aqoontaada diimeed. Tijaabi aqoontaada diimeed. Yaa ku guulaystay kaalimaha hore oo ka soo wada jawaabay lixdii su'aalood ee diiniga ahaa ee aan soo gudbinay. Runtii waxaa jira akhyaar fara badan oo sugaysa in lasoo bandhigo jawaabaha. Sidoo kale waxaa jira dad maasha Allah khayr jecel oo akhyaar ah oo aan aad u jeclahay ilaahay dartii u jeclahay oo barnaamijkan si fiican uga qayb qaatay. Isku dayo fara badan ayaa jiray. Dad waxaa jira aan su'aalaha dhammaan ka wada jawaabin intii garanayeen ka jawaabay. Dad isku daya ayaa jiray iyo dad ka soo wada jawaabay. Waxaan u hambaleynayaa cid waliba oo barnaamijkan ka qayb qaadatay hadday noqoto daawasho ahaan iyo hadday noqoto commenti iyo isku dayba. aad baad u mahadsantihiin. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin xafido, Ilaahay idin barakeeyo, soonkiina Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha aqbalo. Idan dadkii su'aalaha sida saxda uga soo horjawaabay waxa ugu horeeyay laba gabdhood oo lagu kala magacaabo Hodan Xaashi oo ahayd qofkii ugu horeeyay ee si sax ah lixda su'aaloodba uga soo jawaabtay, iyo gabadh kale oo lagu magacaabo iyadana Ubax Khaliif oo iyadana lixda su'aaloodba ka soo jawaabtay. aad baad u mahadsantiin dhammaantiin. haddana intiinii daawatay iyo intaan daawaninba waxaan dib wax yar idinku celinayaa su'aalihii qaabkay ahaayeen iyo jawaabahoodii oo wada socda. daawasho wacan. رمضان أقبل يا أولي الألباب. su-aashii koowaad aan isweydiinay ee qaar ka mid a walaalaha si fiican uga soo jawaabeen, qaar kaloo badan ay ka gabadeen waxaa weeyaan: yuu ahaa qofkii yidhi haddii uuna malkumoodkii iimaanaynin waxaan ka dhigi lahaa wadamada reer Yurub dhammaantood dowlado islaam ah? qofkaasi ma Salaaxudiin ba, mise Cumar bin Khadaab, mise Khaalid bin Waliid? jawaabta saxda waxaa weeyaan Salaaxudiin al-Ayyubi, isaga ayaa yidhi. su-aasheenii labaad aan isweydiinayna waxay ahayd: yuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee ku magacaaba qur-aanka musxaf? qofkaasi ma Cumar bin Khadaab buu ahaa, mise Abubakr Sidiiq, mise Cali bin Abi Taalib radiyallahu canhu ajmaciin? jawaabta saxdaana waxaa weeyaan Abubakr Sidiiq radiyallahu canhu wa ardaah, isaga ayaa u ahaa qofkii ugu horreeyay ee ku magacaabay. su-aasheena saddexaad waxay ahayd: waa kee nabiga saddexda beri ka soomay hadalka? ma nabiyullaahi Saalix ba, mise nabiyullaahi Muuse, mise nabiyullaahi Zakariya? jawaabta saxdaana waxaa weeyaan nabiyullaahi Zakariya. su-aasheenii afaraad ee aan isweydiinay waxaa weeyaan: waa suuradee suuradda lagu magacaabo Ummulkitaab iyo Ummulqur'aan iyo wasabculmathaani? suuradda ma Baqara, ma Faatixa, mise waa suurat Raxmaan? jawaabta saxdaana waa suuratu Faatixa. su-aashii shanaadan isweydiinayna waxay ahayd: waa maxay dembigii ugu horreeyay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala samada lagaga galo? ma shirkiba, ma ghiiba, mise waa xasad? jawaabta saxdaana waxaa weeyaan xasadka ayaa ah dembiga ugu horreeyay ee ilaahay samada laga galo. ibliis lacnatullaahi calayh ayaana xasday abuna aadam calayhi assalaam. su-aasheenii lixaad ee u dambaysayna waxay ahayd: waa meeqa rususha lagu magacaabo ulul casmiga? ma 5 ba, mise waa 10, mise waa 15? jawaabta saxdahana waa 5. waad mahadsantihiin intiina kasoo jawaabtay iyo inta isku dayday iyo inta daawatayba. hana moogaanina qaybaha kale ee barnaamijyadan. asalaamu calaykum.